wake up, bare feet in a lie. They're playing games with our minds, it's no surprise. They're selling dreams, but we're paying the price. They control the narrative, but we'll take back our lives. They're telling us what to think, what to do, but we won't be fooled. We're breaking through, breaking through. Their propaganda we can see right through. We're waking up, ain't nothing they can do. They lie to you. Ma og tahay waa lagu tashaday bari hore. Shirki ka dhacay Berlin 1884 waxaa ka mid ahaa in taariikhdada la bedelo. Qodobka koobaad boqornimadii waxaa loo bedilay dad cawaana oo afka wax ka sheega, wixii dadkii hore qorayna way la wareegeen watan cadayntu. Qodobka labaad 5 qayb u kala saara si ay isku iloobaan oo isku neec badan. Qodobka saddexaad dadka jaarka ku dira oo dhuukoda siiya kadib cool weligood ha ahaadaan ilaa ay isdhamayaan. Qodobka afaraad diinta ka bedila oo buug kale u soo saara oo bara qurankana ka qariya. Qodobka shanaad isku dira ha isdhamayaan qabilo beena u soo saara oo kala jabiya. Qodobka lixaad qabsada markay isdhamayaan kadib daga meesha magacana la wareega. Dad hore ayay ku suubiyeen shakadan oo ay qabsadeen beeri hore, adigana intaas ayaa ku hadhay hadda ina lagu qabsado. Taariikhdada baro dadkii hore ayad ka tafirmatay ee Masar dhisay waa qowmiyad weyn oo Nabi Nuux ka tafirmay. Cadowgagu uu ku og yahay taariikhdada adna isma ogid. Toos hadda ama geesi iyo geesiyad noqo ama fulay noqo bila damiira. Runtu waa ina odayashan jajuusta ee cawanka ah iyo sheekh beenale waa ina layska qabta, waxay u shaqeeyaan dhag casta iyo dhag cad waa ina la tooso, quranka la soo noqdo oo laysku mamuulo. Haddii kale way ino dhammatay. danad ogeyn meeshad ka timiday, meeshad ku socotid ma ogan kaartid. waa maxay magaca Soomaali? waa kalmad guumaystuhu ku saray mar hore 1960 xorriyad lama qadan ee waxaa la xeergeliyey guumaysi toosa lagu jiro. marka aad u fiirsatid kaartooyinka adduunka kalmada Soomaali kuma jirto. markuu guumaysigu imaday ayuu magacan ku saray. dadku waxay dhahan caanaha Soomaal ayuu ka imiday magacu. waa runtaasi. kalmadan waxay soo saareen 1858 kaartooyinkii ka horeeyey kuma jiro magaca Soomaali. wayo waa magac guumaysigu saaray markay ino yimaadeen ka hor meeshan dadkii degana waa reer binu Israa'iil. waa dadkii aan ka taafirmanay. kaartadan waxay ku tuusaysaa inay kuushitigu deganayd meeshan 5,000 oo sano horteed geeka Afrika. gees ila gees dadkeena ayaa degana waxaana dhalay oon ka taafirmanay Nebi Nuux iyo inamadisi oo miid ah Nebi Israa'iil. caddaynta uu horaysa waa dhaqanka, dharka caad, guntimada, macawista, xeerada iyo ciyaaraha. oon weli haysano sida labadan hablood waxay ciyaarayaan waa hooydado. waa ciyaarihii hore, ciyaarahan oo ila hadda la haysto. caddaynta labaad wajeexan bada ka imaanaya Egibt ku dhammaanaysa geeska wajeexii Nebi Muuse soo mariyey dadkii naga horeeyey. caddaynta saddexaad las qoray sawirka ku yala u fiirso. waa sidii Ilaahay quranka nagu sheegay. qofkan wuxuu cabuuday Yasaac. waxaad ku garata gacmaha kor u tagay. waa sidii dadkii cawanka ay samayn jireen. sawirka labaadna saaru uu ka saaraya qofkuna u hoos jooga gamcahana kor buu u haya. waa cabuudis ayay ku tuusaysaa. caddaynta afaraad waa xirsiga. xirsigu waa saan madow oo dadka u soo samayn jiray siduu lacag uga cuno iyo qaar sixir ku ridi jiray. dadkan hadda magaca reer Israa'iil sheegta wax beena oo kobi ah ayay samaysteen. gacanta iyo madaxa ayay ku xidhan, laakiin saxdu waa xirsiga. caddaynta shanaad waa boqoradii Hatshepsut markay doonta soo diratay waxay timid geeska, isku af ayay ku wada hadli jireen. waxaas oo dhan waa caydaymo la dafiiri karin. waa 7 qaybood guumaystuhu nagu kala saaray. waa cabsi bay ayad oo taariikhda kaga bedeleen Soomaalina ku saray. laakiin runtu way soo baxda wax la qariyaba. 1960 xorriyad may ahayn waxaan qadanay ee waxay ahayd guumaysiga markii la sharciyeystay oo magac beena lagu saray. waa sistemkii Farcuun ayaa dib lagudu soo ceeliyey. madaxweynuhu waa Farcuun, wasiirku waa Hamaan, barlamaankuna waa kuwii la shaqaysanayay ee tuugta, shicibkuna waa adoon la guumaysto. waa inaa sistemka Farcuunka la duumiyo. nebiyadii oo dhan anaga ayaa ahayeen. waxaa ku caydayna dulmigii ay samay jireen dadkii naga hore ee quranka ku jira. Soomaalidu maanta way ku jirta. kii wax kufsaday iyo kii wax dilay, gacan ku dhigle iyo dulmiye ayaa bulshadii ku jira oo qabil lagu difaacaya siday nabaad ku soo noqon. Ilaahay uu ku arkaya. diintu afka maha waa ina lagu dhaqmaa. qurankana waa ina la noqda. diintii waa laga qariyey wayo maanta quranka macnihiisa ma taqaanid. dhaqankii waa laga khaday. maanta dhaqan iran iyo dhag case ayad haysata.
Kamiis foolxun oo cabuur u eeg iyo maro weyn, taariikhdadiina waa laga qatay waana lagu nacsiyey waana laysku ka diray. Dumarkii been ayaa loo sheegay Ilaahay timaha ma odhan waa shalmad soo huwada nasaha qariya ayaa Quraanka ku qoran sidii ay dumarkii hore shalmada u haysteen balse dagaalka kadib ayay xijaabkan beenta soo saareen ee dumarka lagu dulmiyey. Goormad hurdada ka kiri. Goormad runta arki. Dheg castu waa cadowgeena waxa u shaqeeya waa odayaashan cawanka xukunka haya iyo Sheekh Beenale. Sadeexda cadow waa ina layska qabta intay goor tahay. Daadku intuna kusoo gaalin ayaa layska moosa. Halganka kusoo biir. Ma og tahay maxaa lagugu diiday inaad qur-aanka fahantiin? Waxaa ku jira taariikhdada iyo siro kale oo badan. Baro siiraha ku jira sheekada Nebi Nuux. Nebi Nuux oo ay Soomaalidu ka taafirmatay wuxuu ahaa nebigu Ilaahay ku dhahay, qoomkagu ma aamini doonaan inta hore u aamintay mahee ee ha ka walwaliin waxay suubinayaan kadib markii doonta sodhiis u Ilaahay ku amray ee u dhisay. Waxaa loo sheegay inuu soo qaado xayawaanka jooga midkiiba laba, waxaa soo raacay nebiga caruurtiisa oo wada wilaal ah. Wiilna Ilaahay ayaa ka reebay. Markii nebigu Ilaahay u calacalay, Ilaahay wuxuu ku dhahay Nebi Nuux kasi eheel kaga muna ahayn, camal wanaagsanna ma suubin jirin, wax anad cilmi u lahayn ha i weydiin. Waan kula talinayaa intanad noqon sida jaahilinta ayuu Ilaahay ku dhahay. Kadib nebigu cafiis ayuu Ilaahay weydiistay inuu ka dhigiin sida kuwa khasaray. Wuxuu dadkas la joogay 950 sano. Kadib markii la roogay adduunkii hore, Ilaahay wuxuu ku dhahay ka daag doonta si nabad ah oo anaga naga timiday iyo barako aan ku saarnay adiga iyo qoomka ka imaan doona kuwa doonta kula saaran. Iyo ummada kalena waxaan siin doona raaxo yar kadibna cadaab xanuun badan ayaa tabsan doonta. Suuradan markaad u fiirsatid waxaa soo baxaya wax badan. Kow, nebigu cilmi badan ayuu lahaa. wuxuuna lahaa wiilal badan, wiilna waa laga reebay oo bada liiqday oo mudhalin nebigu. Marka aad u fiirsato East Africa, 5 qowmiyad ayaa isku eeg waana inta uu dhalay Nebi Nuux. Soomaalidu waxay ka taafirmatay Nebi Israel oo ugu dad badna oo nebiyo badanna ka taafirmatay. Kuwii ugu dambeeyeyna waa adiga. Waa inaad ogatid meesha laga neceb yahay, waayo taariikh dheer ayaad leedahay. Nebiyadii inta ugu badan adigay ka dhasheen. Cadowgu siirtan ayuu og yahay waa sababta uu iskugu keen diray dadka jaarka la nahay, adigana qabil beena ku suubiyey si aad isku dhammaysid. Kaartadan cadowgu wuxuu ku qoray waxaan helnay dhulkii Nuux isagoo ka hadlaya Afrika. Siirta kale waa dadkan doonta la saarna Nebi Nuux ee muslimay taafiirdoodu waa Afrikanka, Bantuda, Maraykanka, Australia. Wixii madow oo dhan waa dad barakaysan sida Soomaalida. Cunsurinimada ha layska dhaafo iyo jaahilnimada. Siirta kalena waa ummada kale ee raxada yar Ilaahay sinayo kadibna cadaabta la siin doono waa dheg casta iyo dheg caadka. Waa sababta kale ku neceb yihiin oo buugag kale lagu soo qoray sida aad cadaabta u raacdid. Waa xasiidnimo tasna ogow. Adduunkan shaydanka dad cabuuda ayaa haysta waa ina aad ogatid. Quraanka macnihiisa waa muhiim ina la fahmo. Quraanku uu dhan yahay waxba kama maqna. Quraanka waa ina la isku maamulo kadib ayaa la toosi indhaha iyo maskaxda la fuuri oo cadaalad u soo noqon kadib ayaa cadowga la iska celin kara. Hadda ood og tahay siirta adduunka iyo ina tahay taafirta Nebi Nuux, ma og tahay doonta dadkii la socday ee Ilaahay barakeeyey dadka ay ahayeen. Waxaa ka mid ah Afrikanka oo dhan sida Bantuda, Hindiya oo dad madow asaalkoodu yahay iyo dhulka u dhow oo dhan sida Pakistan. Shiinaha oo ayaguna dad madow aha markii hore. Jabaanka oo lamida ayaguna dad madow aha. Inda yarta oo dhan madow ayay ahayeen markii hore. Filibiinta waa madow, Thailand waa madow, Singapore waa madow iyo Vietnamka iyo Indonesia. Korea ayaguna waa madow asaalkoodu. Maraykanka oo la garanayo inay madow asaalkoodu ahayeen iyo Australia oo taariikhdeeda adduunku ogaday ina la xasuuqay dadkii madooba ee u dhashay qarada Australia. Qaradahaas oo dhan waa dadkii la socday Nebi Nuux oo adduunka qaabsaday oo degana weligood waa dad barakaysan oo madow asaalkoodu ahaa. Cadaanka ayaa ka dhigay sidan aad arkaysid hadda. Bulshadii midabkoodii madooba ayay badileen markay raggii dhulkas joogay ay xasuuqeen ayay dumarkii xoogeen. Waa sababta ay midabkoogii isku badilay. Hadda u raban inayna qabsadan oo ay soo degaan dhulka Soomaalida. Bari hore ayay isku eegeen inayna qabsadan balse Ilaahay ayaana badbaadiyey waayo dad barakaysan ayaan nahay. Waa ina laga foojignada haddii kale sidii dadkii hore ku dhacday way ina soo socota haddii laysbedeli wayo oo Quraanka laysku maamuli wayo. Sidii asaalkeeni naga horeeyey ee ahaa reer binu Israel waan ka leexanay Quraankii Ilaahay noo soo dejiyey. Muslimnimo afka lagama sheegto waa lagu dhaqmaa. Quraanka waa ina loo noqdo oo la barta macnihiisa. Waa ina midnimo la soo celiya kadibna odayaashan tuuginta iyo Sheekh Beenale waa ina la xidha dhammaan lay guul ma keeno.
Ma og tahay sababta lagugu diiday inaad qur-aanka fahantiid? Waa amar ka soo baxay Sacuudiga iyo guumaystaha. Qur-aanka Ilaahay wuxuu u soo dejiyey in adduunka oo dhan fahmo oo af walba lagu turjumo. Haddaba waa maxay sababta Sheekh Beenale ay u diideen inay af Soomaali dadka ku baran? Sababtu waxay tahay qur-aanka waxaa ku jira siiro badan oo la diidayo in aad baratid. Siirta ugu horeysa baro. Dheg cas iyo dheg cad waa isku qowmiyad. Dadkan Carabti runta ahayd maha Carabta runtu waa dad madow. Dheg cas iyo dheg cad waxay ka imadeen qarada la dhaho Antarctica ee barafka leh. Ilaahay ayaa nagu sheegay sheekada Quraanka ee duul qarnayn wuxuu ahaa ama ka hadhay dadkii buurta la leeka. Ilaahay weliba tilmaan ayuu nagu sheegay wuxuu dhahay waxay deganayeen meesha cadceedu ka soo baxdo. Waa sababta ay iskugu eeg yihiin dheg cas iyo dheg cad. Dadkii madooba ee Amerika way qabsadeen, reer Yurub oo boqortooyo madow ahana way qabsadeen oo magacii ka qateen. Carabti runta ahay ee madoobana way qabsadeen magacii ka qateen. Diintiina way badileen oo buug kale soo qoreen iyaga iyo jiinka la shaqeeya. Adduunkan sidaad moodaysid maha waa adduun taariikhda lagala wareegay. Ilaahay ayaa naga qabtay way la wareegi lahayeen dulkeena bari hore, balse haddii isbeddel dhici wayo waa nala roogi doonaa waa nala qabsan doonaa. Hadda soo toos oo Quraanka macnahiisa baro. Sheekh Beenale naha aaminin hana maqlin waa meesha naga soo galan cadowgu. Si gudbi fariintan. Dheg cas iyo dheg cad siirtoda baro. Sidan hore uga hadalnay dadkan waa isku qowmiyad. Ilaahay ayaa Quraanka nagu sheegay cadceedu meeshay ka soo baxdo ayay deganayeen. Waxaana ugu tegay duul qarnayn oo ku soo caawiyey wixii Ilaahay ugu diray. Kadib dadkii way bateen dhulkiina uu isbedelay oo baraaf ayuu noqday oo kumay noolan karin barafkas. Waxay dhisteen maraakiib badan si ay dadkooda u badbadiyaan oo ay dhul kale ugu raadiyaan. Way soo baxeen ayagoo duulaya bada ka soo galeen. Waxay qabsadeen horta dhulkii badaha u dhowa oo dhan sida Greega iyo wixii u dhow oo ahaa boqortooyin madow. Adduunka oo dhan dad madow ayaa degana. Qarnigii 12 waa la yabay boqortooyinkii madooba ee jiray hal ayay ugu duuleen oo duumiyeen dhulkiina ka qabsadeen. Markay qabsadeen dhulkii Masar u dhowa waxaa marklay boqorkii Masar bariga xukumi jiray oo la dhihi jiray Ramses kii saddexaad. Dagaalkaas meel ayuu ku qoray ku tala ilaa hadda Masar iyo guushii uu ka helay dheg cadka markii ugu horeysay ay rabeen inay qabsadaan. sanadku markuu ahaa u dhowan 175 Ramses kii saddexaad ayaa maqlay inay rabaan inay ku soo duulaan si degdeg ah. Wuxuu diray ciidan badan oo isku jira kuwa luugta ku socda, kuwa faras ku socda iyo kuwa markakiib ku socda si ay uga hore tagaan cadowga. Dheg cadku waxay ahaayeen dad dibaad galeena oo bila naxariis ah. Maraakiib badana ku socda. Ramses wuxuu kabsaday maxaabiis badan kadibna ciidanka Masar ayay ku bireen. Ramses iyo ciidankiisu diyaar ayay u ahaayeen. Kuwii luugta ku soo galay way iska ceeliyeen. Kuwii badana Ramses ayaa la socday oo markab saaran. Dagaalka kadib Ramses ayay guushu raacday. Dheg cad waa laga guulaystay.
laakiin Masar waxay ku noqotay dib dhaqaalihii ayaa hoos u dhacay sababtaas ayay u sii dhammaan doonta awoodda Masar ugu dambaynta. Hadda dhulkii ayaa ka imadeen dhegcad waxaa la dhahaa Antarctica weyne qariyaan qofna ma tegi karo waxa maamula oo uu heshiiyey waa dhegcad. Laguma ogola inaad tagtid haddaad tagtid meelo aan la taagi karin ayaa jira. Hadda toos oo adduunka arag quranka siiraha ku jira baro haddii aan quranka sheekadan ka baran lahayn ma ogan lahayn qaraadan la qarinayo iyo dadkan dhulkay dhegcas iyo dhegcad ka imadeen. Si guud bifariintan dhegcasta wax badan kadib ayagoo bila dhul ah oo dibadgaleena oo buuraha iyo geedaha fooraha ah dhexdooda gala. Waxay soo galeen dhulkii kale ee ay carabtu deganayd ayagoo dhahaya diintan ku soo biirnay iyo qar ku biray dimihii kale dhagaxda ay cabuudi jireen. Sidan hore u ognahay carabta runtu dad madow ayay ahayeen. Nebiga kadib waxaa inoo hadhay qurankii Ilaahay noo soo dejiyey oo dadku isku maamuli jireen quranka oo keliya. Dadku waxay doorteen Abu Bakar inuu horseed noqdo wuxuu xilka hayay 2 sano kadib wala dilay kadib Umar ayaa la doortay 10 sano kadib wala dilay. Waxaa ku xigay Uthman oo joogay 12 sano waana la dilay kadib Ali oo joogay 5 sano asagana waa la dilay. Markaas waxaa la bilaabay in la kala baxo oo diin kale la soo saaro iyo buuga kale. Fidnada waxaa keenay buugagta kale ee la soo qoray ee la dhaho xadiiska waxay u kala baxeen laxa kooxood Sunni iyo Shia. Sunni waxay ka dhigteen nebiga iyo asxaabaha in ay caabudaan, Shiicaduna inay caabudaan Ali. Sheekadan waxay jirtay markuu nebigu noolaa inay beeniyaan quranka oo ay dhahaan nebiga soo qoray. Markaasuu Ilaahay suurad soo dejiyay 1:3 sideed Ilaahay wuxuu dhahay bal haddaba keena suurad tani la mid ah uu yeedho qofkad rabtid aan Ilaahay ahayn oo ku caawiya hadda run sheegaysid way keeni wayeen wayna ku jaabeen. Balse Ilaahay u sii arkayay waxay samayn doonaan markuu nebigu dhinto wuxuu nooga taagay diignin in ay cadowga nebiga yihiin oo ay la shaqeeyaan jiinka oo ay buuga isla qoreen wana ina buuga aan ka dheerano watan cadayntii. Suurada wax baro buuga cadowga inoo keenay ka dheerow waa buug shaydan buugan xadiiska la dhaho. Xadiiska ugu fiican waa quranka, magaca dhanba waa kobi quranka laga xaday. Ilaahayna magaca nebiga weliga haddaba dhigin waa shirki wata ugu xun adduunka ee Ilaahay una ka rali ahayn. Xasidnimo ayaana lagu keenay sidan cadaabta ugu raacno dadkan dhagcasta. Nebiyadii oo dhan waxay dhihi jireen manihiin kuwii ku shirakeeya Ilaahayow ama magac kale ku agdhiga waayo waa xaran iska ilaali. La ilaaha illallah ayaa kugu filaan iyo quranka Ilaahay inoo soo dejiyey. Videogan soo socda waa carabti runta ahayd ee madoobayd oo markii la jaabiyey ee la qabsaday ee la guumaystay. Dhulka iyo magaca laga qatay. Siirta baro iyo dhaqan xumada meesha ay inaga soo gashay iyo caruurta la guursanayo waxay nooga timaday waa dhagcasta iyo buuga beenta ee ay u samaysteen. For the slave traders lies in the pilgrimage to Mecca. Mecca is the heart of Islam. And Islam is the third religion in the world. Show me one single Muslim. Isheeg dhul muslima oo aan lagaga dhammin gumaysiga ayuu dhahay boqorkii beenta ahaa ee Faysal isagoo gaalnimo isku cadaynaya. We find what we have been searching for 6 months. Waxaan helnay waxaan 6 bilood ka radinaynay dhulka carabta waa meel lagu ibinayo dad. Waxaan helnay suuq furan oo bila adan lagu ibinayo. Suuqani waxaa lagu qabtay filooyinkii hore dhexdooda. 3 nin iyo 3 dumar ayaa jooga oo la kala ibsanaya oo Afrikana. All Africans. They appear resigned to their fate. Adoominta oo dhan kama imadan Afrika oo keliya waxa laga hela jaarka iyo dadka carabta ee dhulka uu dhashay waxa keliya ee sameeyaan waa xaflad weyn oo laskugu imado markaas ayay hablihii carabti guriyaha ka soo baxan iyo magaalooyinka jaarka laga imada ee carabti runta ahayd deganayd kadib ragi dhagcasta meeshas ayay ka qarabtaan kuwii ay abahood ka ibsanayaan iyo kuway xadayaan iyo kuwa ay kufsadaan Decide which ones they will try to buy from their fathers or their husbands. Which ones they will have to kidnap.
In a small villa on the outskirts of an African city on the Red Sea, dhulka waxay u eg tahay Tanzania waxay ka dhigan jireen dhulkan dhul ay tumasho iyo sino ugu yimaadaan waa guuri villa ah oo lagu hayo caruurtii laga dhalay dumarkii meeshas lagula tumanayay waxaa loo bixiyay xanano balse waa meel guumaysi iyo adoonsi loo fuurtay iyo tababar caruurta siday odayaasha ugu diyaarin lahayeen si ay uga iibiyaan bilaha ugu horeeya hooyadu wayso booqan karta caruurteeda kadibna waa loo diidayaa oo waxaa la wareegayaa rag dhag cad iyo dhag cas oo isla heshiiyay oo caruurtas adoonnimo iyo sino u si diyaariya kadibna ka iibiya odayaasha ka imaday dhulka carabta qiimuhu ugu kala sareeya waxay ku xidhan tahay daada ama midabka ama shaqada ilmahaas lagu wado gabadh yar oo muwalidad ah oo 12 jira waxay ku qiimeeyaan $5,000 waxaa la sheegay inuu imaanayo oday boqortooyada ku jira oo la qarinayo magaciisa oo soo socda wuu imiday isagoon ka warhayn inay kamaradu duubayso wuxuu samaynayo waa oday meesha weligii ka adeegan jiray meesha wuxuu u imaday inuu kuwa ugu fiican ka iibsado oday weyn oo buka oo caruurta xooga gabdhahaasi yaryar ee muwaladiinta ayuu soo iibsaday waxay ku dambayn doonaan meel lagu xoogo oo ay weligood gumaysi ku jiraan iyo meel lagu gado hala yaabin farxadda waxaa tababaray Greega waxaa laga dhadhiciyay nolol fiican ayaa ku suugaysa iyo reer ku jecel oo ku korsan doona laakiinse waa markii farxad iyo qosol ugu dambaysay caruurtaas yar dhaqankan xun ayay ina keeneen dhag castu iyo caruur la kala iibsanayo oo la guursado waa inaan dhaqankan xun ee nala keenay aan iska bedilno hadda nabad rabno caruurtiina ha ibinina kuwait oo ay degan yihiin 300,000 waxaa maalin walba u soo dhacda $3 milyan ay gaska ku gadeen balse dadkii degana ee dhulka iska laha waxay ka qadeen xanuuno iyo dhibato dad badan ayaa ku dhammaday and the camel is precious. And to give the camel a rest now and then, water is biyuhu waa qali geeluna waa qali si uu awrku u nasto waxa biyaha soo saara waa dadkii meesha degana ee la adoonsaday caruurtoodii oo meesha lagu gumaysanayo waa hablo yar yar oo u dhaxeeya 10 jiir ilaa 12 jiir ayaa indhaha laga xidhay si ayna u wareerin intay wareegayaan maalinto dhan waa dad bila naxariisa qalabkii ugu qalisanaa waxaa loo isticmaala gaaska sida dhulka ku hoos jira loola soo baxo balse biyaha waa inay dad la adoonsanayo ay soo saraan waxaa nala fasaxay inaan muuqaal ka qadano boqortooyada beenta iskooladooda waxaa nala sheegay inuu boqorka beenta uu keligii dhalay 100 caruura kuwa ku xigana waa kuwii xildhibaanada iyo brin iyadu ay dhaleen waa caruur nadifa oo si fiican loo eedbiyey laakiin u fiirso caruur waxaa jira bila buug socda kuwasi waa kuwa ay dhaleen kuwa gaaska ka ganacsada buugagtooda waxaa u wada caruur adoomo u ah aboohood ayaa adoommadasi uu iibiyey sanadgalkoodii waa caruur adoon u ah oo ku kori doona adoonsiga oo kadibna noqon doona wardiye u gooniya inta ugu badan caruurtan waxaa laga dhalay caruurtii la sogatay ee adoomada guuryaha lagu haysto sharciga beenta ah ee ay u samaysteen wuxuu sheegayaa inay ayaguna adoomo ay yihiin caruurtan ay ka dhaleen adoomada ay haystaan
meeshan waa Kenya ama Tanzania waxaa lagu sheega buu dhahay inay meeshan ay hablo qurux badan ku nool yihiin uma baahniid inaad isqarisiid magaalooyin noocan ah ayaa jira oo aad ka gadan kartid adoomada waxaan ayaa ka dhaca magaaladan Afrikaanka ah habeenkii waa guuri lagu ibinayo dad la soo afduubay waxaa naloo sheegay ina u jiro guuri ay imadan dilalada East Africa ee ka ugu lacagta badan bixiya laga ibinayo adoomada Our informant leads us there through narrow streets and back alleys. ninkii dilaalkii ayaa meeshii ku wada guurigii lagu ibinayay dadka Then we watch a girl being naag dheg casa ayaa meesha dadka wax ka ibinaysa oday magaalo kale ka imiday meesha wax ka gadanaya oo uu bayacaya hablaha yaryar waa inaan toosno hadda waa inaad fahantiid waxay buugan xadiska u soo qorteen waa si ay carruurta u xalalsadaan oo ay dumarka u gumaystaan waa ina buugagtan ilaahay noga digay ee uu dhahay ka dheerada waa ina laga dheerado oo quranka la soo noqdo iyo macnihiisa oo lagu dhaqmo casharka weyn wuxuu yahay ha ibinina hablihiina iyo ha guursanina carruurta si guud bifariintan This is indeed a trap. calanka maxad ka og tahay waa maxay sababta lagu qoray xidigta dadka waxaa lagu dhahay xidigtu waa shanta Soomaaliyeed balse waa been jaahilinta laga dhadhiliyay calankan hore ayuu u jiray oo Mareykanka ka jira watan cadayntii talabaad xidigtu waxay ka dhigan tahay shaydanka astantiisa ama calamadiisa dhagcaadku waxay dhahan wuxuu ahaa xidigtiiso dhacday watan cadayntii waxay kaga tala wajiga xidigtu xidigtas waxaa calanka lagu suubiya wadannada la qabsado ee dadka shaydanka u shaqeeya qabsadan waa sabatas adduunka dadkii la qabsaday oo dhan waad ka arki xidigta miskidka waa lagu suubiyey dadkuna way ku hoos tuukadaan waa sanaabtasi wana shirki ilaahay ma ogola odayaashan aad culimo ku sheegteen waa qayimin weligii kuma toosinayo shaqadiisu waa inuu isku ka diiro ku kala qaybiyo diinta ka saaro oo buug kale ku baro oo uu quranka ka qariyo iyo kuwan dawladda isku sheega waa isku miid wadaba dhilif cadowga u shaqeeya waa ina la tooso oo calan ilaahay keliya ku qoray yahay la suubiyo oo quranka la isku maamulo toos ama shaydanka xidigtiisa ku hoos jiir oo calan shaydana ku hoos dhimo ama u dhimo aqirana xisaab ayana suubaysa quranka wax walba kuu jiiran wuna dhan yahay wax kale uma baahniid baro macnihiisa qof kale ha isku halayn adduunka waxa hadda haysta waa dheg cas iyo dheg cad shaydanka cabuuda oo carruurta xooga wax ku caddayna carruurta hoos jooga xigta iyo biishuna waa calamadooda biishu waa geesaha xidigtuna astaantisa anagana way ino keeneen calanka wata ku taala watan miskiidka duushisa ku talaa weliga ma isweydisay maxay miskiid keliya Soomaalida ugu dhisaan dheg castu sanaabkas inay meel walba ka tagaan shaydanka ah ayay rabaan oo uu dadkana galaafto shaydanku waa balantisa inuu na duufsado tasna la soco oo hurdada ka toos diintii muslimka ahayd mar hore ayay badileen oo duumiyeen oo waxay suubiyeen buug kale oo ay sharciyo kale ku samaysteen waxaa ku jira oo dhan waa been iyo wax bible ka laga soo qatay iyo dimaha kale ayaga iyo jiinku sheekooyin beena ah ay soo abuureen ayaa ka buuxa iyo quurafad beena talabaad wixii ay dadkii naga horeeyay ay samayn jireen ayay dheg castu si baratay reer binu Israel ayaa bilabay inay jiinka cabuudan oo ay la shaqaystaan waxaad ka fahmaysa magaca hubaal oo afkeena ah qurankana ilaahay ayaa ku sheegay ilaa hadda la joogo Soomaalidu way samaysa baabka iyo jiin cabuudka waxaa loo yaqaana magacyo badan saarka ama wadadada ama moolidka ama siyaaro magacad ku fahmaysidba waa shirki iska ilali markas ayaa loo qala xolo oo waxaa la siiya hadiyaad weliga ma arkaysid wax ka hadla wayo diinta maba garanayaan sheekh isku sheeg diinta kuma dhaqmaan dadkuna waa dad afka muslimka ah oo madaxa laga guumaystay oo laga qariyey qurankii ay taariikhdoodu ku talay odayaashan waa sixirole sheekh iska dhigaya u fiirso dadka hoos fadhiya waa la mooda indho sirxaad inay ku jiiraan way suursan yihiin wayo buugan jiin ayaa dad la qoray wax jiin qorayna wax xuun ayaa ku jiira ka dheerada sixiirka oo ka baxa